السلام عليكم. qofkii xigmad la siiyay waxa la siiyay khayr badan. maanta waxaan gacanta gelinaynaa sanduuqa xigmadaha kaydka bini'aadamka. waxaana kala soo baxaynaa xigmadaha iyo oraha uu qiimaha badan ee nolosha bini'aadamka laga yiri. haddaan ku bilowno hadalkan, nin ayaa yiri, marka aad leedahay waan ku necbahay, ma ahan in aad i necbtahay aniga, ee waxaad necbtahay waa suuradaas aad iga samaysatay, fikirkaas aad iga aaminsan tahay, waxa aad iga aaminsan tahay, fikradaas aad iga haysato. haddaba anigu ma ahan waxaas necbtahay, ee waa adiga, sababtoo ah adiga ayaa dhisay fikradaas in aad i necbtahay. waxaas isku qancisay afkaar iyo sawir aad iga haysato, sawir guud oo is leedahay qofkaas waa sidaas iyo sidaas. waana wala aragnaa markii qof nacano waxaan raadinaa kun ceebood uusan lahayn. waxaan ka samaynaa qisooyin aanan jirin. hadallo badan waa dabeecadda bini'aadamka nasiib xumo. muhiim ma ahan in aan nolol farxad leh ku noolaado, ee waxa muhiim ah in aan nolol karaamo leh ku noolaado. ninka oo haatan yiri waxaa karaamada u arkaa in ay ka horeyso sacaadada iyo farxadda. muhiimadiisa koowaadna tahay in uu ku noolaado nolol karaamo leh, in uu dareemo xorriyad iyo madax banaane. bini'aadamka hadduu haysan xorriyad iyo madax banaane iyo karaamo uusan ku nooleen, xoolaha waa nool yihiin, raggu way siman yihiin marka ay hadlayaan, mana kala saari karno marka laga reebo falka ay sameeyeen. hawsha ay qabanayaan ayaa lagu kala saaraa. siyaasi markii la dooranayo, inta badan dadka aanan aqoonin waxay ku doortaan waa hadalkiisa iyo wuxuu sheegaya, lamana kala saari karo musharaxiinta, laakiin waxqabadkooda ayaa lagu kala saaraa. hawsha ay qabanayaan, laba nin oo is ag taagan oo mid walba aas leeyahay hawshan aan qabanaya sidaan ayaan nahay, afka uu ka hadlaya ma kala saari kartid kooda kartida badan iyo midka iska hadlaya ee hadal waxaan haynin. calool maran, jeeb aware, qalbi dhaawacan waxay ku bari karaan casharada ugu fiican nolosha ee aanan jamaacadda ugu sarreysa aan ka bari karin. taasoo loola jeedo in xaaladaha arag tijaayooyinka fashilka leh ay ku siinayaan casharo bilaash ah ee nolosha ku aadan. waxaa la yiri iskuulka cashar ayaa lagugu siiyaa, kadibna imtixaan ayaa laga qaadaa casharka lagu siiyey. laakiin nolosha imtixaan ayay ka qaadataa si ay cashar ku siiso. waxaa horeeya imtixaanka, waatan dadka ay dhahaan ku cimri qaado waxaas shaygaas dhacay, sida oo kale oo kuwa dadka dhaho waan ka bartay qaladaadkayda. imtixaanka ayaa horeeya si aad cashar u qaadato. hadalka kaftanka ee dadka ay isdhaafsadaan ee markay caadi yihiin waxaa ku jira xaqiiqooyin dhab ah ee carabka xadee. waxay dhacdaa in ay qofka marka ay kula kaftanayaan xaqiiqooyin run ah ay ku tilmaamayaan sheegaan, laakiin qaab kaftan ahaan hadduu aan isku qaldaynin. sidaas darteed waxaa la dhahaa kaftanka aadka u badan xadka lahayn waxaa sababa mashaakil badan, waxaa dadka dhex dhaliya cadaawad. sidaas darteed waxaan ula talinayaa in aad dhexaysato kaftanka, in 24 saacaadna ahayn qof kaftan u taagan. qofka dumarka ah, haweeneydu marka ay hanaaqto waxay waydaa ruuc ka mid ah quruxdeeda, kalabar dumarnimadeeda iyo dhammaan jaceylkeeda. haddii aad qof sir u sheegto waxaa gacanta u gelisay waran aad ku dhafan karo maalintii. waxaa laisku raacay inaan qofka sirtaada hayo inaa wax badan noloshaada gacanta ku dhigi karo, in aad noloshaada xukumi kara, inaa waxyaalo badan loolan kula geli karo isagoo ku goodinaya inuu hayo sirtaada. waa haddii qof xun isu bedelo. hantidu waa sidii biyaha badda oo kale, mar kasta oo iska cabto waa sii oomi. sida oo kale caannimadana waa sidaas. dadka caanka ee kala duwan mar kasta oo sii noqdaan dad caan ah waxaa sii kordhaya rabitaankooda in ay sii caansi noqdaan, in ay kibir ka qaadaan, in ay dhahaan haddii xalfad ama meel inta badan loo waco uma qalmo mowqifkan, in qaab noocan oo kale laga soo dhaweeyo wax ka weyn aan mudanahay, waxaan ahay qof caan oo loo oqaan. inta badan dadka caan ee sabankan jirana waxay u badan yihiin dad aanan wanaagsaneyn, markii hal qof oo faraku-tiris laga reebo. dadka ayaa iska noqday dameero dhan raace. qofka aanan hadda ku qadarin biri kuma qadarin doono.
hadalka iska suga ayaamaha ayaa isbedeli doona wuuna ku qadarin waa waqti lumis. dareenka bini'aadamka waa mid cajiib ah. waxaa laga yaabaa inaan qof aan weliga arkin oo dhowr daqiiqo isla joogteen aad ugu yaraan 95% wuxuu yahay ogaan kartid in ay naftaadu aqbasho, aad degnaan dareento, qiyaastan wuxuu yahay. dad ayaa isku guursada, gaar ahaan mujtamaceedka muslimka qayb ka mid ah, in wiil iyo gabar lisu doono iyagoon is arag, kadibna guur gabadha lagu ballamo si ay isu arkaan. haddaba marka ay kala tagaan, gabadha ama wiilka la weydiiyo haddii ay isku qanceen iyo aragtidooda ku aadan qofkaasi, waxay dhahaan inta badan haddii ay isku qanceen oo kale naftayda ku dhigtay, waxaan dareemayaa xasillooni. qoysas aad u qiimo badan ayaa saas lagu dhisaa. dad noocaas isku guursada, qofka ka hor taagan haddii hadal yar indhex maro, waxaad ogaan kartaa inta badan ilaa heer wuxuu yahay. halka ma lihin waa wala ogaan kartaa, laakiin ilaa heer aad ogaan kartaa. xilliyada qaar waxaan u cararnaa dhinaca hurdada si aan u saaxano. ma ahan inaan hurdaysanahay, waa inaan ka cararaynaa waaqican hor yeela ee xanuunka badan. sidaa darteed waxaa leeyahay qofka marka aad walwalsan yahay oo mashaakil ku fur yihiin, ama cunada oo aad u cunaa, ama wuu seexdaa, sida usu dhaafiyo mashaakilka hor yeela. cudurka samirkan lagu magacaabo ti'aabka murugada, in aan qofka murugo iska dareemo sabab la'aan, waxaa inta badan keenta in uu qofka cunada aad u cuno si uu u madadaaliyo, si uu isu dhaafiyo mashaakilkaas. waxaana ka dhasha dad aad u burburin ee mashaakil leh arrinkaas kusii keeno. weligaa been ha u sheegin qof kugu kalsoon. waa waran xarun badan in aad khiyaanto qof kugu kalsoonaaday. khiyaanadaas noocay doonto ha ahaatee. waxaa la yiri qof waxaa lagu gartaa saaxiibadiisa. nin ayaa arrinkan ka yiri, itus qof aad qiimeynayso, waxaan kuu sheegaa waxaas tahay. inta badan xitaa ragga sirdoonka markay qof wax badan ka ogaan rabaan, waxay raadiyaan saaxiibadiisa, dadku uu la socdo wuxuu yahay si ay wax u wadaan. weliba xilligan waqtigan, qof markuu safaarad dalfiisu ka dalbanayo ama dal qaxootinimo ka dalbanayo, waxaa si sir ah u baaraan ciwaamihiisa baraha bulshada. waana arrin dhab ah, cidda uu la socdo si ay wax uga ogaadaan. qiso waxaa jirtay dhowr sano ka hore, gabar Soomaali Swedish ah ee wadankaas muddo ku nooleed, laakiin ay Facebook u qorneed in ay ka imaaday magaalo aanan ahayn midda ay ku soo dalgashay. waxaana socday qiso ah in dib loo celinayo. warbaahinta taa ka hadli jireen, habeenka qaybtiisa hore dib u fiiri qaladaadkaada ee mashaakilka aad samaysay, waxyaabaha aad gaftay, wixii ka dhacay. qaybtiisa dambane qaladaadka dadka kale istaag wax yar. maxaa loola jeedaa? waa hadiiba uu ku soo hero qayb kale si aad uga hayso dadka qaladaadkooda. waxaa lagala jeedaa in haddii aad xisaabiso qaladaadkaada fiiriso, aadba helayna aba yaraato waqti aad dadka mashaakilkooda uga hadasho oo dadka ceebahooda uga hadasho. soomaalidu waxay ku mahmaadaa waari maysi war ha ka helo. waxaa jirta xikmad lamid ah oo leh, haddii aan nahay bini'aadam, waana arrin dhab ah, noolama abuurin in aan baaqi noqono. haddaba ka tag raad wanaagsan oo ka haro. waa kii nabi Ibraahim calayhi salaam ilaahay weydiisanaye inuu raad wanaagsan ugu tago dadka imaanayo. wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin. ilaahayna ugu jawaabay, wataraknaa calayhi fi laakhiriin. mufasirka Tabari wuxuu ku fasirayaa, waxaan u reebnay ammaan dadka imaan doonaan, mashaakil badan aan qarsoomi lahaa haddii ay dadka bartaan in ay isla hadlaan inta ay iska hadli lahaayeen. taasoo ah in haddii qof dhibaato iyo khilaaf kala dhexay, inta dadka kale u sheegi lahayd arrinkan iyo arrinkan ajara, labadiin si toos ah iskula hadla. waxaa dhab ah in aad si dhab ah xalin kartaan oo dhibaatooyin ka mid ah. markii hor fadhiisataan oo si toos iskula hadashaan oo isdhahdaan, oo niyo maxaan rabnaa, maslaxadeena waa maxay, maxaan isku hanaaqsanahay. insaanku wuxuu u baahan yahay kaliya 2 sano si uu hadalka u barto, laakiin 60 sano si uu u barto aamusnaanta.
waxaa jira 3 shay oo aad u adag qayb birta ka mid ah oo lagu magacaabo fuulaad barashada naftaada in aan naftaada daatadaada barato taqaano waa mid aad iyo aad u adag nin ayaa yiri maalin walba waxaan iska ogaadaa waxaan ogaan oo naftayda ku saabsan waxaan sii ogaadaa xaqiiqadayda wuxuu sii raacinayaa aad aan u qoslaa markii uu qof ii imaado oo ii leedahay waan ku aqaanaa wax badan ayaan ka aqaanaa haddii aniga ahaa amaanin walba isbaranayo waa maxay aqoonta leedahay waan ku aqaanaa ee sheegaysa wuxuu bini'aadam sameeyo wax ka xumo lahan in hadda lagu imaado qof ku imaado ama dad ku imaadaan kadibna ku daadasadaan laga xanaajiyo buuq lagugu sameeyo si lagaaga saaro waxaada ugu xun qofku markuu hanaaqo isbedelaa kadibna lagu dhahaa waxa tahay qof xun waxaad ku hadlaysa fiiri maya aniga ma xumi ee adiga ayaa arrinkan dhaliyay adiga ayaa xun sababtoo ah anigu ma ihi waxaan adiga ayaa dhaliyay waxa macquul ah in aad qasaarto qof qalbigaada ku weyn heer aad u manayso in oo caalamka oo dhan oo soo jeegan hal qof oo kale in oo bini'aadamka oo dhan aad baaba'ay waxaa jira qisooyin badan dad isu dilay in ay waayeen qof ay jeclaayeen waa dhacyooti maalinimo ee caalamka ka dhaca qofkaas isdilaayo qofkan uu isdilaayo ayuu aaminsan yahay inuu yahay noloshiisa oo dhan adduunkiisa oo dhan qofka oo dadka uu ku leeyahay hadduu u waayana adduun uusan jirin baaba ay meel aandada jirin nasiib xumo waa qof aanan baran xaqiiqada dhabta ee adduunka iyo xaalkiisa bani'aadamka haddii ilig ku xanuunayo waxaad u malaysaa inta dadka oo ilig xanuunaynin ay ku nool yihiin farcad iyo reereyn wanaagsan haddii aad qandanto waxa kaliya aad raadinaysa adduunkan waa inaad qandhadaas ka kacdo xitaa fiiri haddii qofku madaxa ku wareerayo oo la labato oo socon wayso adduunka oo dhan waa dhaafsan kartaa oo kaliya in uu wareerkaas ka tago in aad caadi kusoo noqoto sidaas darteed rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa dhihi jiray nimcooyin aanan la qadarin karin dadka in badan qiimo siinin sida caafimaadka dhalinyaranimada firaqada iyo wax la mid ah haddaad rabto inaan tirada dadka xunxun hoos u dhacaan ugu yaraan hal qof naftaada hagaaji haddaba si ay tirada hoos ugu dhacdo hal qof oo ah adiga inta aanan isixin isqabanin xaqiiqadaada ogaanin waxaad ka mid tahay dadkaas aad rabto in ay yaraadaan laakiin marka ay naftaada hagaajiso tiradaas ugu yaraan hal qof ay hoos u dhici oo ah adiga ayaa meesha ka baxay caruurta yaryar waa laga ilaaliyaa in ay daawadaan muuqaalada foosha xun kuwa argagax leh halka dadka waaweyn loo ogol yahay laguna soo qoro wixii 18 sano ka weyn sirtu waa inaan caruurta weli ay nadiif yihiin wasaqoobin qulubtooda nadiif tahay una dul qaadan karin wasaqowga iyo foolxumada laakiin markay weynaadaan waxay gaari heer ay xumaan kasto caadi u noqonayso kuna soo biiraan dadka 18 ka weyn